بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaynu bilaabaynaa غزوة بني المصطلق ama غزوة المرaysiic dagaalkii uu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam ku qaaday nimanka la yidhaha reer banulmusطaliq kutubta qaarkood ma yidhaahdaan ghaswadii غaswaة muraysiic muraysiic waa ceelkay ka cabi jireen ama waa meeshay degaanka u lahaayeen musطaliquna waa banulmusطaliqna waa qabiilka banulmusطaliq waa qabiil ka tirsan khusaaca oo usdiyiinta iyo yamaanida ah waxay degi jireen qudayd iyo cusfaan inta u dhaxaysa waxa la yidhahdaa waa maka iyo madiine jidka u dhaxeeya ayay degi jireen meel maka ilaa 120 kilomitir u jirta ayay qudaydu ku taallaa cusfaantuna ilaa 80 kilomitir macnaheedu waxa weeyaa marka 40 kilomitir oo intaasiya ayuu reerkani degi jiray iyadoo khusaaca qabiilkan weyn ay ka tirsan yihiin dhammaantoodba ay marka hore ahaayeen dad dega maka iyo madiine dhexdooda waxaanay ahaan jireen filjaahiliya khusaacada tani niman xidhiidh wadaag lale quraysh gaar ahaan reerkii uu nebigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam waxaana inta badan ahaan jireen dad musaalimiin la ah muslimiinta oo aan wax dhibaato iyo dagaali ka dhaxaynin rubama markan dambe waxyaabuu uga sii dhexan wayeen ay ka tirsanaydba qabiil ahaan waxay wadaagi jireen aws iyo khasraj oo aws iyo khasraj waxay isugu yimaadaan odayga la yidhaahdo camar ibnu caamir oo ah awowga labaad ee aws iyo khasraj banulmusطaliqna waa awowgooda afraad yani qoladaasay markaa qabiil ahaan ayay wadaagi jireen waxaana jira runtii taxaalufaad iyaga iyo ka dhexeeyey baynu odhan karnaa quraysh maadaama jidkan ay mari jireen waxaa kaloo qoladan ay caan ku ahayd waa reerkii uu dhexdooda ku yaalay sanamka la yidhaahdo munah wa manaata haaliata alukhra ka ilaahay qur-aanku tilmaamayo sanamkaasi meesha ku yaallo ayay deganaayeen inta badanna makay u dhowaayeen degaan ahaan maadaama sanamkanna meesha ku yaallo qurayshna xidhiidho wanaagsan iyo waxaana ay la lahaayeen islaamka faafistiisu kuma badnayn waagaa hore nimankaasi reer banulmusطaliq la yidhaahdo laakiin mowqifkii ugu horreeya colaadeed ee qabiilkan iyo islaamka dhex mara wuxuunbuu yimi dagaalkii uxud ayay ka mid ahaayeen dadkii axaabishta ahaa ee soo raacay quraysh ee dagaalkaasi ka soo qayb galay bay ahaayeen waataynu nina dagaalkaasi waxyaabuhu sababay raadadku ka tegey waxaa ka mid ahaa acraabtii ama nimankii qabaa'ilkii reer miyiga ahaa oo waxoogaa hunguri ka galay in madiine iyo timirteeda la weerari karo ama muslimiinta lasoo weerari karo marka waxaa la yidhahaa qabiilkan sida qabaa'ilka kaleba waxoogaa hunguri uga galgalay waxay isku dayeen iyaguna inay weerar soo qaadaan marka war baa nebiga soo gaadhay baa la yidhaha calayhi الsalaatu wasalaam in ninkii la odhan jiray alxaarith ibnu abi daraar uu waxoogaa ciidana iyo hub iyo wax isku ururiyey qabaa'ilka u dhodhow iyo waxaasoo dhan uu soo ururiyey oo uu rabo duulimaad inuu sameeyo dabeetana waxay culamaai taariikh sheegaan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u soo diray nin cayna ama nin basaasa oo u soo indhaindheeya oo saxaabigii la odhan jiray burayda ibnu lxusayb ilaslami ayaa la soo diray baa la ydhaha bal nimanka iyo axwaashooda inuu soo egeego waanu u yimi dabeetana waxaanu soo ogaaday inay ku tala jiraan inay madiina u soo weerar tagaan si kasta haatee nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa bishii shacbaan sanadkii shanaad ee hijiriyada laba habeen markay ka tagtay shacbaan yani shacbaan oo laba jirta ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo bilaabay weerarkan oo xagga kan u soo kacay waa sida raajixa buu sheekhu sheegaya yani culammadu waa isku yaro khilaafsan yihiin sanadkay dhacday sanadkii shanaad bay dhacday mise sanadkii lixaad bay dhacday wallahu aclam waxaa raajix aad moodaa inay sanadkii shanaad dhacday weliba inay dhacday ghaswatu khandaq horteed sababtuna waxa weeyaan ghaswatu khandaq waxaynu u leenahay horteed dadka ghaswada tan iyo muranadii ka dhashay ka qayb galay waxaynu ka arki doonaa inuu ka mid yahay sacd ibnu mucaad sacd ibnu mucaadna waxaa macruufa oo laisku wada waafaqsanyayey reer banu qurayda markii uu xukumay kadib inuu shahiido mise geeriyooday
marka haddii la yidhahdo ghaswadatani wakhtigaasay kasii dambaysa axaadiista bukhaariya sheegaya sacd ibnu mucaad iyo murankan inuu ku jiray waxaad mooddaa inay iska hor imanayso sidaa awgeed waxaa la qaataa muusa bnu cuqba sida uu ka soo warinaya azuhri imaamu zuhri iyo curwa oo ah inay dhacday sanadkii shanaad ee hijriyada yani ghaswadani inay dhacday sanadkii shanaad ee hijriyada waxaa kaloo soo arooray xadadkani siduu u dhacay bukhaari iyo muslim waxay ku tilmaamayaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam reerkan weeraray wahum haaruun iyagoo iyana weerar soo waday waxaa kaloo riwaayaadka axaadiista saxiixeynka ka cad gaar ahaan bukhaari inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan soo weeraray iyadoo aan wax iclaama la ogeysiin walidaalika baa culammadu waxay u daliishadaan gaaladu haddii kooxdani ay yihiin koox awalba islaamku uu soo gaadhay inaanay u baahnayn iclaan labaad in loo sheego oo yani islaamku marka hore dadka duulimaadka kuma horaysiyo waxaa la horaysiya maxay iclaamka iyo islaamka sharxiisa iyo gaadhsiintiisa marka qolada tan hore u soo gaadhay baa la yidhaahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan markuu soo weeraray kooxdani markii iyagoo aan filaynin buu ka soo duldhacay uun dabeetana waxaa la yidhaahdaa carabtii kale iyo wixii soo ororiyey wixii oo dhamme way kala yaaceen riwaayaadka qaar baa odhanaya dagaal baa dhacay laakiin waxay culimmadu rajaxaan inaan meeshan dagaal ka dhicin nimankii reer balmustaliq ahaa inay kala yaaceen dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii inay qabsadeen xoolihii iyo wixii ay meesha ugu yimaadeen yani dumarkii iyo caruurtii iyo xoolihii wixii la qabsaday oo dhan ayaa lasoo qabsaday iyadoo aan wax dagaali dhicin taasi waxay sheegaysaa markaasi in dadkoodii dagaalyahanka ay ka baxsadeen meesha xoolo badan bay sheegaan culamada taariikhda soo aroorisa oo meesha tan lagu qabsaday maalan inkastoo riwaayaadka aroorinayaan ay saa usii xoog badbadnayn waxay sheegayaan haddana ilaa iyo 2,000 oo neef oo geela iyo 5,000 oo neef oo adhiya xoolo gaadhaya iyo 200 oo reer wax gaadhaya in la qabsaday ninkii meeshan madaxda ka ahaa iyo kolley kuma jiraan dadka la soo qabtay laakiin waxaa ku jira dadka la soo qabtay haweentii uu dhalay ama inantuu dhalay ee juwayriya la odhan jiray ayaa ka mid ahayd dadkii maxbuusnimada loo soo qabsaday madiine ayuu nebigu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam isaga oo bishii ramadaan ay soo gashay markuu muddo bil ah ka maqnaa baa la yidhaahdaa ama 2 habeen meelahaasaa ka dhiman baa yidhaahdaan bil meelahaasi ayuu ka maqnaa waqcada tani waxay u dhacday markaa si fudud oo ah in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo guulaystay aan wax dhiba oo dagaali la kulmin qabiilkaasina inay kala yaaceen qabiilkanna in xoolo badan iyo dumar iyo caruurtiiba laga soo qaaday oo laga soo wada qabsaday wax mashaakil oo kalena markaasi dadka muslimiinta inaanay soo gaadhin waxay dhacdanayadani abuurtay waxyaabo badan oo raadada bay samaysay ka taariikh ghazwa marka la daraasaynayo ma badna waa inahaas bay iskaga koobantay muddo bil ku dhowaadana inuu nebigu maqnaa calayhi salaatu wasalaam ceelkaasi muraysic la yidhaahdana inuu tegey xoolihii iyo dumarkii iyo carruurtii iyo dadkii joogayna in lasoo qabsaday gaalada wixii kala yaaci karayeyna inay carareen laakiin qadiyadda tani waxaa la yidhaahdaa waxay kaloo wadatay 2 qiso oo aada u caana ayaa wakhtiga kan dhacay labadan qiso waxay ka warramayaan dowrkay munaafiqiintu ku lahaayeen labadan qiso qisada koowaad waa qisada cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul ayaa labadaba ka madaxa labada qisaba qiso waa qisada suuratulmunaafiquun ku soo degtay arinta kalena waa arinta aayaad ka mida suuratu nuur xaadisatul ifk dhacdadii been abuurka waa xaadisada ay ku soo degtay haddaynu labadan qiso midba waxoogaa ka tilmaamno ta koowaad waxaa la tilmaamaa ceelkii biyaha laga cabayay nimankan horta dee waa tashadeen iyagu iyo sidii muslimiintan la isugu dari lahaa ceelkii biyaha laga cabayey ayaa muslimiintu u arooreen markay qaswadu dhammaatay kadib waxaa la yidhaahdaa nin shaqaalo oo cumar la socday oo jahjah alkhifaari la yidhaahdo iyo nin ansaarta ka tirsan
oo Sinan ibn Wabar al-Jahani la yiraahdo oo laba nin oo iska shaqaala oo saa u xoog badnaynaya ku kulmay ceelkii dabeetana biyihii un baa la isku qabqabtay nimankaasi afka ka yara xumaaday waa qayliyeen kii Jahani baa qayliye wuxuu yiri yaa macshar al-ansaar tollaa yaa ansaaray baa mid yiri kii kalena wuxuu yiri yaa macshar al-muhaajiriin muhaajiriinta ayuu ku qayliyay isaguna jahjahna waxa la yiraahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu weedhatan maqlay aad buu u qariibsaday isagoo leh bidacwa al-jaahiliya wa ana bayna adhurukum warma dacwadii ma warkii jaahiliyada ayaa soo celisay anigoo dhexdiina jooga dacuuha fainaha muntinna wardaafa buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waxaan waa wax uray waa bakhti uray ee ka taga tolaa ya reer hebel ayna tilaada buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa bakhti uraya ee dhaafa waxa kan weedhaas waxay isku dayeen nimanka munaafiqiintii markiiba inay ka faa'iideystaan qadiyada tan oo ay dadka muslimiinta isku diraan dabeetana waxa maqlay baa la yiraahdaa ninkii la oran jiray Abdullah ibn Ubay ibn Salul waa iska cadhaysay isagoo koox tolkiya la fadhiya waxa meesha fadhiyay baa la yiraahdaa wiil yar oo muslimiinta kamid ah Zayd ibn Arqam wiil yar oo la yiraahdo oo inan yara ayaa fadhiyay Abdullah waadi markuu maqlay wuxuu yiri baa la yiraahdaa waqad faaluha masaasa yeelan markii loo sheegay muhaajiriin baa saa yeeraysa markaasuu weedho badan oo hadal iskaga hadlay baa la yiraahdaa nimanka waynu soo dhaweynay oo caynkan baynu u sameynay oo waxbaynu siinay oo waqoodin oo maanta inta kibreen bay yaa tolaay inaga ina leeyihiin nimanka taariikhda qora qaar kamid ah weedho ka xunxun baabay ka soo wariyaan waxay yiraahdaan wuxuu yiri wallahi waxaynu taaganay halkii ninkii hore ka yiri samin kalbak yaakulak naaxiyaygu ha ku cunee yani saxaabadii iyo dadkii muslimiintu ka dhigaya dad sidii ayda inta la naaxiyay dabeetana iyaga cunay waa dhaartay baa la yidhi wuxuu yiri waxa soo dhan idinka inoo geystay buu leeyahay la tunfiqu ala man inda rasuulillahi hatta yanfadu war waxba ha qoodineen nimankan hadda marka horeba juuqda ka jari lahaydeen xoolihiina ay cuneen baa saalay ku kibrayay waxba ha siinina hadaydan waxba siinin waxan oo dhiba iyo rabshadaniba idinkuma soo dhaceen buu yiri baa la yiri dabeetana isagoo hadalka sii wato wuxuu yiri hadaynu dib ugu noqono saani sidee lagu wada nagaadaba ma ahe la rajacna ila al-madina la yukhrijana al-azz minha al-adl magaaladii madiina hadaynu ku noqono saare kuwa sharafta leh kuwa dulliyiinta ka soo saare inagaaba maanta magaaladeena la inoogu hanjabay caynkaas lagu hadlayaa buu leeyahay warkaas buu isku buufiyay isagoo raba inuu isku diro ansaarta iyo muhaajiriinta saxaabada dhexdooda oo nacradkii jaahiliga ahaa ama wixii hore qabaa'ilkii iyo qudun qadhaadhkii inuu dib u soo nooleeyo oo u sheegaya marka ansaartan la fadhida leh waxaasi waa wixii idinka isku sababo waxa soo dhan isu geystay inta wixii nicun siiseen oo dejiseen oo soo dhaweyseen inay maanta hadana sidaa u hadlaan laakiin majliskan uu waxan ka akhrinayo waxa fadhiya wiil yar oo saxaabada ka tirsan oo Zayd ibn Arqam la yiraahdo wiilkii yar uu kacay dabeetana adeerkii buu u sheegay oo wuxuu yiri maanta Abdullah waxaas buu ku hadlayo waxaas buu sheegay riwaayadka qaarna waxay leeyihiin Umar buu sheegay adeerkii hadduu sheegana waa Sa'd ibn Mu'adh barajaynayay على كل حال وادي ayaa markaas nabiga loo keenay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam baa loo sheegay waxa la yiri ninkii Abdullah ibn Ubayha majlis halkeeru waxa kaga hadlay oo waxa maqlayo fadhiyay wiilkan yar Zayd ibn al-Arqam la yiraahdo ayaa warkaana ka soo gudbiyo soo sheegay majliskii nabiga loogu sheegay kaleey salaatu wasalaam ansaartii iyo dadkii waaweynaa fadhiyay ويرى غريب سده وعلى النبي عليه الصلاة والسلام عيد ودري مركو عيد ودري عبد الله الله يري يا أصحابتي واللي يبلو كما رأينا وحبا أرنين ما نجا نبي يا وحكي شجنا وبنت وحبك ما تشران تبعتنا مركو كرد أرتي أيا صحابتي يدك أكفر دينا وحلا يدين نكوين كل شيء ما بين شيء ما نكوين بين شيء ما هذا وركو مركي ويمي أيو نبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب والله فرديا وحولي إلهي رسولك سي عمر فر
عباد بن بشر هدي لكنه dabeetana wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cumarow maxaad u malaynaysaa dadku hadday ku sheekaystaan nebi maxamed saxaabadiisu laaya haddii dadku ku sheekaystaan wuu diiday markaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam in uu dilo saxaabigii yaraaye zayd ibnu arqamna dee nin weyn oo odaya iyo waxoogaagay la fadhiyay intan markay isu nacamlaysay la yidhi waxba muu sheegin wiilkii yaraa sidii wax la beeniyo kale ayuu noqday oo warkiisii aan waxaan jirin wuxuu leeyahay markaasa anigana zayd ibn arqam ba xadiidka warinaya wuxuu leeyahay ham iyo muruga ay fuulay oo markii lay rumaysan waayay ninkan iyo wixiisiina la rumaystay anigana weligiiba si aanan u murugoon ayaan u murugooday oo waan iska tago gurigaan iska fadhiistay buu yidhi adeerkayna wuxuu igu yidhi ma arata ilaa an kadabaka rasuulullahi sala allahu calayh wasalam oo maqatag wiil yar wax kale uma socon wuxuu baa doonayay inuu nabigu ku beeniyo ku cadhoodo Soomaa waxa soo dhaqan xumaa yaani odaygiina anigu way si canaantay buu yiri oo mar hadii uu aynka nabiga yeelay calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii ninkan ka dhaartay anna canaan baa la igu sii daray buu leeyahay kadib baa ilaahay quraan soo dajiyay oo wiilkan yar alla ku taageeray subhanahu wa ta'ala oo la tilmaamayo wiilka yar run sheegayo ninkanina wuxuu waday inay been ahayd وكآيات كقرآن السودة سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى أي آيات كثيرة بدن لأنك أن يقصد إسكا والرمية إلى إنما كان منافقين تمرك كوي ما دام وحي كل نارنا يانو لين إلهي الرسول كيسينا طيبا مرخاتك أنك عني إلهي نوا كمرخاتين إلهي الرسول كيسيتي وحكى له مرخاتك يين بين عليهم بالله سبحانه وتعالى دبتنا النفاق يوح الصواب يوح ربا آيات كثيرة كورمية إلا يلا سوغر سي آياتك هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض إلا الله كتلمامي سبحانه وتعالى إلهي لا يوكو يري لا تنفقوا على من عند رسول الله إلهي رسول كيس كوا لجوغا هنفقيننا أو حبها السنين وكو يري إلهي نميان يوغيننا لله سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض إن إلهي قعنتي سكوشرا وكان لسيت المامي إلهي لا يخرجن العز منها لدل ولله العزة ولرسوله وحور شيغي ودن سمدا لغا خيره الهي با كورمay subhanahu wa ta'ala وقال tilmaama ya nimanka kane in iyagu colka rasmiga ay iyaga la iska daa humul adu fahdharhum qatalahum Allah wa kala ku tilmaamay wa kala tilmaamay subhanahu wa ta'ala wa weynidooda iyo warxumadooda inay iskhilaafsan tahay kaanhum khushubun musannada wa ka ilaahay ku tilmaamay yani muuqaal weynidooda iyo caynka yihiin iyo warxumidooda ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka tilmaamaya idan quraan baa alla soo dajiyay subhanahu wa ta'ala oo kaga waramayo nimanka munaafiqiinta iyo meeshay taagayeen dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wiilkii yaraa u yeeray oo inna allaha qad saddaqaka ya zayd wiilkii yaraa zaydow ilaahay baa adiga ku rumeeyo sheegay waxaad sheegaysaa inay run tahay dhacdadani markay sida tan u dhacday qadiyadii la isku hayayna uu nabigu dajiyay calayhi salaatu wasalaam ma baalu dacwa al-jaahiliya wana bayna adhurukum nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamay in laga tago waxa kan inay bakhti tahay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay qadiyada tan inuu xalilo qadiyadan mar haday cadda inuu ninkani yiri Umar wuxuu damcay in lagu xalilo dil waxaan munaafiq ah waxa kan ku hadlaya berigi horena de wixii uu sameeyay waa la wada garanaya berigi horena wuxuu sameeyay waa de dagaalkii hore in ka soo baxnay Uhudna waa ninkii jabiyay ciidanka ee la baxay 300 nin dib uga la noqday dabeetana Umar markaas buu leeyahay Ilaahay rasuulkiisa iyo kan dil oo hebel u dir hadile nabiguna calayhi salaatu wasalaam riwaayadka qaarkoodna waxay tilmaamayeen inuu dacni adrib unuqa igu siida Ilaahu kanaan madaxa ka Ilaahay rasuulkiisa iyo kanaan madaxa ka jaray igu siida nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri iska dah maxaad u malaynaysaa haday dadku ku sheekaystaan berrito nabi maxamed cidiisu laaya yani maadaama islaamku soo korayay oo mujtamac yar ay haayeen maadaama ay u baahnaayeen in islaamka iyo samaxadiisa iyo wanaagiisu inay dadka gaadho qabaa'ilka kale oo diinta lagu soo hirto la soo dhawaysto wuxuu nabigu diidanaa dacaayadka laga faafinayo islaamka in dacaayada ay ka baxdo odhanaysa wuxuu joobay buu maxamed yiraahdayo asxaabtiisu laaya dacaayada inay ka faafto buu nabigu diidanaa calayhi salaatu wasalaam deetana wuxuu ku yiri maxaad u malaynaysaa hadii la yiraahdo maxamed wuxuu laayaa saxaabadiisa
qadiyadda nabigu calayhi salaatu wasalaam si kale ayuu markaasi u xallilay. kow wuxuu faray in ciidanka la raro waqti aanay guuri jirin ayuu nabigu raray calayhi salaatu wasalaam. hala guura buu yidhi. goor duhurnimadii baa la soo dhaqaajiyey baa la yidhi. maalintii oo dhan socodkaa lagu waday, habeenkii oo dhanna socod baa la waday, waa la guuraynayey. maalintii dambe galinkii hore oo dhanna waa lagu waday. goor barqa ah iyadoo aan nafba cidi ku jirin oo la socday maalintii hore gelin ka mida iyo habeenkii dambe iyo subaxii dambe intaaba la soconayey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii meel dejiyey si xadiidkan iyo warkan iyo sheekadiisa oo dhan mujtamacu uga baxo loo daalo oo akhbaartaasi ay u lunto. dadkii iyagoo daalan ayaa markii la dejiyey nin waliba meelu dhinaca dhigunbuu daydayday ilaan habeen iyo maalin baa nin waliba soconayeen. dabeetana waa la wada daatay oo waa la iska seexday. nimankan munaafiqiinta ahina qadayaadkoodan ay wadeen may joojinin ee weli in badan ayay sii wadeen. waxaa la yidhaahdaa yani aayaadka meeshan ku jira waxaa ka mida wiilkuu dhalay cabdilaahi ibnu ubayi inan buu lahaa isagana cabdilaahi la yidhaahdo. cabdilaahi ibnu ubayi ibnu sulul loo odhan jiray. laakiin wiilku wiil iimaan qanjaha joogaan buu ahaa, wiil alle iyo rasuulkiisa rumaysan. waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam, ilaahay rasuulkiisiiyo intaad cid kale u diri lahayd oo ay dili lahayd anigu aan dilo hayna dhaafee odayga kan aniga gacantayda ha ku baxo maadaama uu ilaah iyo rasuulkiisii looga taagalayay. markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iska dah oo u samafal aabbaha. iska daa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo weliba u samafal ayuu farayay. laa walaakin bir abaaka wa axsin suxbatah, waxba ha dilin ee aabbaha u samafal oo wanaag u samee buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. isagoo wiilkani haddana aabbihii u samafalaya waxaa la yidhaahdaa wuu diiday maalintii inuu galo madiina. waxaan rabaa buu leeyahay in la ogaado man ilacaz wa man idaliil inuu muuqdo. ilaahay rasuulkiisa kuu fasaxa mooyaane madiina dib ugu noqon maysid buu ku yidhi. ilaahay rasuulkiisa casiiska magaaladan madiine ka talinaya. calaa kulli xaal waxaad arkaysaa un dadku iimaanku siduu u kala fogeeyo. waa inan iyo aabbihii labada halkan kala jooga midna uu nabiga waxaan ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam. kan munaafiqnimuunbuu islaamka la dhex joogaayo waa kuu sayd ibnu xudayr uu tilmaamayey. ilaahay rasuulkiisiiyo buu lahaa kan isaga dulqaado, waayo wuxuu magaalada soo gashay isagoo tolkii ay madaxnimo u sallaxeen oo taajkaba la rabo in la saaro ayaad magaalada madiine soo gasho. markaa wuxuu u haystaa nimaad kursi ka qaaday inuu yahay. ilaahay rasuulkiisiiyo isaga sabir buu lahaa iska sii daa. munaafiqiintu dhacdada tan kumay guulaysanin sidii ay u rabeen. nabiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadii wuu xallilay. ilaahayna qur-aan buu soo dejiyey nimanka munaafiqiinta iyo qadiyadooda uu ku kashifayo. laakiin weli may dhigin haddana ee waxay rabeen inay qadiyadan sii wadwadaan oo ay qaab kale u dejiyaan. weliba meel khataray doorka labaad ka galeen oo ah islaamku waxa koowaad uu ku dhisnaa ama uu ku salaysnaa waxay ahayd nadaafad, akhlaaq wanaagsani iyo qiyam ayaa dadku ugu soo hiranayay. waxay ku talagaleen inay qiyamkaasi siday u burburin lahaayeen inay sameeyaan iyo akhlaaq fiicnidaasi siday u ceebayn lahaayeen qofkii ugu nadiifsanaa mujtamaca muslimiinta oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. walidaalik baa waxay markan haddana abuureen qiso labaad oo isla wakhtigan la soo guuraya dib loo soo socday dhacday. magaalada madiine agteeda goor la soo degay ayaa haddana waxaa la rabay ciidankii inay guuraan. wakhtigii ciidanka muslimiintii ay guurayeen in yar ka hor ayay caaisha baxday. yani nebiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisa waxaa ahaan jirtay safar hadduu u baxayo dumarkiisa wuu u qori tuuri jiray, gaar ahaan safarada jihaadka. dabeetana tii nasiibkeedu usoo baxaabaa la safri jirtay oo jihaadka kala qaybgeli jirtay. doorkan ghaswatu bani lmustaliq caaisha radia allahu canha ayaa la socotay, waana intii xijaabku soo degay kadib. waxaa damcay nebigu calayhi salaatu wasalaam in la guuro. caaisha waxay leedahay wakhtigii la guurayay in yar ka hor ayaan dabadda u baxay xaajo aan lahaa. dabeetana waan soo noqday. markii aan soo noqday ee dadkii rabo in la xidhxidhee la guurana waxaan waayay bay leedahay caqdi maxaa la ydhahaa waxaan luqunta lagu xidho silsilad ama kuul waxay xidhnayd
oo ammaano ku ahayd oo walaasheed lahayd ayaan waayay bay tiri deetana waxay sidii bay tiri intaan dadku xidhxidhanayo dib u noqo oo bal meelihii aad soo marmartay soo eego kuushaadii inaad soo hesho dib baan u noqday bay leedahay intii ay kuushii ku maqnayd ayay waxay soo gaadhay safarka in neefkii geela ay fuushanayd in la raro carabta waxaa caado ahaan jirtay hawdaj bah la yidhaahdo oo guri yar ah ayay gabadhu galaysaa dabeetana hawdajkaba intaa la qaadaabaa dusha laga saaraa awrka saasaa loo raraa waa qol yar oo samaysan oo dabada gabadhu markay ku xarooto inta hareeraha la qabto ayuunbaa dusha laga saaraa waxay leedahay intii anigu aan ku maqnaa bahalkii ayaa hawdajkeedii yaraa loo yimiyo nin qura iyo meelaha hadduu qaadaan ama laba waa la dareemi lahaye koox saxaaba unba hareeraha isla qabatay uno awrkuunbaa dusha laga saaray midna waa jirto caaisha inan yarna way ahayd waxaanay leedahay intii aan hilibku ifoolin bay ahayd yani inan yar bay ahayd oo sanadkii shanaad haddaynu nidhaahno ee hijriyada sanadkii tobnaadna meelahaasuu nebigu ka dhintay iyadoo 18 jir yani markan 13 jir meelahaasaabay da'deedu ahayd inan aada u yar bay ahayd isla markaana carabta caadadoodii hore waxay ahaan jirtay in dumarka la dhuubo oo dhexda ay bahal yar ku geejistaan oo xataa maalin oo dhan dumarku musqulba may qaban jirin habeenkii unbaabay dabadda u yara bixi jireen maroo kasoo noqon jireen waxaad ka dareemaysaa markaa sida aanay cunno badan dumarku u isticmaali jirin ama ay u fududaayeen bahalkii yaraa cidiba ma dareemin bay tiriye intay dacallada la qabtay oo dhowr nin isugu tagtay ayuunbaa awrka dusha laga saaray dabeetana waa lagu xidhay intaa caynkiiyo baydaba loo jiiday unbaa la dhaqaajiyey safar baa markaasi loo xidhxidhay waxaan meeshii imi bay leedahay caaisha anigoo soconaya ayaan meeshii imi mise qofba ma joogo ciidanka gebigiisiiba wuu guuray waxaana sidhi bay tihi markaasi dee kolley marka meelaha herdhexe la maraya lagu tabi doonaa waa saqadhaadiya waxba marka la waaye marunbaa lagu dareemiye ha tegine halka ku sii sug meeshii baan iska fadhiistay bay tihi cabaar markaan fadhiyeyna way lulooto hurdadunbaaba iga badato dhinac baan u dhacay bay leedahay way iska seexatay inan yar bay daahayd waxaa soo baxay markaasi oo ciidanka ka hadhay waxaa jiray saxaabi la yidhaahdo safwaan ibn lmucaal safwaan nin saxaabi oo khayr badan buu ahaa waxaana safwaan uu caan ku ahaa safwaan ibn lmucaal isulami nin aada u hurdo badan buu ahaan jiray yani hidda ahaan reerkoodaa ku dhashayba waayo waxaynu ka garanaynaa xadiidkii kale saxiixa waa kii sheegayey safwaan waxaa la yidhi beri bay haweentiisu ka soo ashtakooto waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ninkan safwaan la yidhaahdaa 3 arrin buu 3 daba leeyahy ayay kaga ashtakootay salaada subax ma kacbay tidhi cadceeddoo soo baxda mooyaane waxay kaloo sheegtay soonta sunnaa ana kama soomi kara wayga jebiyaabay tihi waxay kaloo sheegatay markaasi qur-aankana suuradaha qaar baa haddaan akhriyo wuu dilaabay tihi waa markii islaamnimadu ay iska ninkani dhowaan buu soo islaamay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam safwaan baa loo yeedho fadhiyo war bal warran baa layidhi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo tan salaada ay kuu sheegayso reer hebel baan ka dhasho reerka iyagaba cadceed kuleylkeedoo kiciyo mooyaane nin reer hebel oo kacaba hore looma arag wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaad toosto tuko markaad indhaa kala qaadee toosto tuko buu ku yidhi yacni waa reer ku caanbaxay bay ahaan jireen hurda weynidatan markaad indhaa kala qaado tuko ku yidhi markaasuu wuxuu kaloo yidhi gabadhan maxaad ilaahay rasuulkiisa oo nin dhalinyaro hadda guursaday baan ahay ma sabri karayo iyana soonsoon unbay igu wadaa una aan ahayn tii waajibka ahayd na xadiidka kaluu nebigu sheegay markaasi gabadhi ma soomi karto soon tatawuca biduuni idni zawjiha ninkeedu haddaan u ogolaan kii saddexaad baa la yidhi maxaad markay suuradahan ku tukato u dishaa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiiyo qur-aan badan ma qaybsaniyo iyadaa taqaane anigu labadii aan aqaanu bay rabtaa inay igaga tukato muslimka oo dhamme hadduu ku tukado buu yidhi way ku filan tahay ha ku dilinay u dahay muslimka oo dhamme hadduu ku wada tukado waxaan xadiidka uga jeedaa waa yani islaamnimadoodii horay tilmaamaysaa safwaan ibn lmucaal markaa wuxuu caan ku ahaa nin hurdo badan buu ahaa waxaa la yidhahdaa goobaha dagaalka markuu raaco had iyo goor ciidanka wuu ka dambayn jiray waxaanu soo eegi jiray baa la yidhaahdaa meelaha ay ciidanku ka guureen bal wax lagaga guuray iyo waxa jira iyo ragga nooca u qaybsan ayuu ahaan jiray baa la yidhahdaa caaisha waxay leedahay meeshii anigoo iska jiifa ayuunbaan dushayda waxaan ka maqlay qof leh inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun nin lowbaan dushayda ka maqlay bay leedahay
waxay leedahay caaisha wuxuu yaqaanay intaan xijaabku soo degin yani waxa muuqata waqtiga kan inuu ahaa waqti xijaabku soo degay waxay leedahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun tii baan ku toosay dabeetana markaan toosay baan wajiga maradii saartay xijaabkeedii yaraayeysatay markaas baan isku wada daday bay leedahay ilaamu hadal bay tiri juuqna iimu odhanay neefkii geele watay intuu fadhiisiyay ayuu u qarqarsiiyo adinka iskaga taagay dabeetana wuu saara markay fuushay neefkii intuu u qarqarsiiyay markay fuushayna hogaanku qabta wuu kaxay wax juuqo hadal oo dambe inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ma yana wax hadal oo ninkaas yiri ma jirta bay tiri sidii uu waday ayuu Safwan ibn al-Mu'attal ciidankii u geeyay ciidankii markuu geeyayna nimankii munaafiqiinta war bay bilaabeen ay leeyihiin Aisha iyo ninkani way isla hadheen warkaas bay daldaleen iyagoo raba inay nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ceebeeyaan saxaabada iyo nabiga calayhi salaatu wasalaamna ay isku diraan murankaas bay faafiyeen oo dadkii dhexgeliyeen nooc min tuhmana way yara muuqataayo dee gabadhan yar iyo ninkan ciidanka keligood ka hadhay ee labaduba markan dambe oo wada yimaadeenna waxay noqotay tuhmo yar oo ay ku xoojistaan warkooda oo ay faafiyaan warkii wuu tiro batay ninkii hadeer quraanku ka soo degay habaarka qabayna wuxuu kaloo helay meel labaad oo uu shaqada ka bilaabo oo ah inuu nabiga ceebeeyo calayhi salaatu wasalaam iyo Aisha iyo Abi Bakr iyo reera aan runtii reera ceebeed ahayn guriga Abi Bakr iyo guriga Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam oo ummadan ba labadii qof ugu khayrka badnaaya ayay ceeb markaasi uu bilaabay warkii baa la isgaadhgaadhsiiyay warkii markii la isgaadhgaadhsiiyay dadkii saxaabada ahaa warkaasi waa wada gaadhay munaafiqiintii iyo wixii oo dhamina way isgaadhgaadhsiiyeen waxay noqotay markaa in akhbaartaasi si غayru caadi ay u faafto dadka intii wax magaratada ahayd ama aan hore wax badan u fahmaynina warkaas bay qaadeen oo iswada gaadhgaadhsiiyeen oo isu sheegeen nabiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadaasi waxba kama odhana wuu aamusa muddo bil ah ayaan arintaa wax waxyi kaga soo degay nabiga calayhi salaatu wasalaam warkaasina uu magaaladii Madiina daafaheeda xula oo la isu wada sheegay oo saxaabadii iyo dadkii la isu wada sheegay dadkii qofba mowqif buu iska taagay markaas dadka bad iimaan u qanjaab buuxiyay oo yiraahdo waxaan macquul maaha Abu Ayyub al-Ansari baa loo sheegay subhanaka ma yakunu lana an natakallama bihada subhanak hada buhtan adhim ba hadith ka warisa Bukhari inuu weedhaasi ku dhawaaqi jiray Abu Ayyub al-Ansari waxaas wax lagu hadla ma habulaha kaasina inay been cad tahay waa iska cadahay buu leeyahay yani been la soo malaasay inay tahay dadka badna waa aqbaleen oo waa wadwadeen dadka aqbalay waxa kamid ahaa Mustah ibn Uthath Mustah waxa dhashay islaan ay habar wadaagiin Abu Bakr Siddiq marka Abu Bakr habar wadaagtii baa dhashay oo guriga ay wada joogeen isaga Abu Bakr baa beeliya laakiin waa nin badriyana ragi badar ka qayb galay laakiin warkan dadku oo akhriya marmar bay dadku iska rumaystaane wuxuu ka mid noqday qoladii warkaasi runta mooday ee faafisay waxa ka mid ah ragga warkan runta mooday faafiyay Hasan ibn Thabit shaacirkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii nabiga difaaci jiray gabayaaga ugu weynaa muslimiintaba ayaa ka mid ah nimanka warkan loo hoos galiyay ee runta mooday iska qaatay dadka warkan runta mooday waxa ka mid ahaa Hamna bintu Jahsh Hamna wayna gabadh khayr badan ahayd oo haweentii uu ka shahiidoobay Mus'ab ibn Umayr ee walaalka la ahayd shahiidkii kale Abdullah ibn Jahsh walaalka la ahayd ee abtigeedu ahaa Hamza ibn Abdul Muttalib ragaasi gabadhan la joogtay haddana warkaasi qoladii loo halabiyay bay kamid ahayd waliba walaasheed way dhowrsatay walaasheed waa Zaynab bint Jahsh Zaynab oo nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam oo Zayd ay kala tageen gabadhan bay walaalahaayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyo bal arrinkan ka warrab buu ku yiri waxay ku tiri Ahmed sam'i wa basari anigu dhagteedii shaydaan ilaashanaya yani haweenta waxaan ka maqlay
iyo waxaan ku tuhunsanay midna ma jirto saasi daraaddeed dambigan la wadwado laakiin un malaa gabadhan unbaa la hinaastay walaasheed un hinaasa u qaado warka qolada qaadqaaday bay ka mid ahayd warkaasi magaalada xoog buu u galay isla markaa caaishana mabay maqalba sheekadan iyo sida loo wado oo dhan caaishana warkeedu maba soo gaadhin walidaalika waa taa caaisha tilmaamaysa xadiidkii bukhaari waan xanuunsaday bay tidhi dabeetana waxba maan dareemin ilaa iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam ludfigii badnaa jajabnaantii badnaa ee aan ka dareemi jiray ayuun baan ka arki waayey bay leedahay waanay xanuunsanaysay oo way xanuunsatay marka waxba kale warkana loomaba sheegino maan maqal habeenada ka mida bay tidhi ayaanu aniga iyo ummu mustax baa israacnay mustaxa kan qolada warka sheegtay hooyadii iyo caaisha israacay oo habeenkii dabadda ugu baxeen carabtu waagaa hore caaisha waxay leedahay waa intii aanan guryaha bahalladan ka qodan bay leedahay oo barigii hore ceeb bay ahayd reerku musqushiisa inuu ku xaaro aad bay u necbaysan jireen dhaqamadii hore yani musqulahan guriga dee docdiisa in meel lagu saxaro dhigto laga samaysto way sida reer miyigeen oo kale way ka faani jireen marka waxay ahaan jirtay dumarku habeenkii qura in la baxo habeenkii in dabadda loo baxo la soo noqdo uun waxay leedahay intii aan kaniifka af carabiga waa godkan yar ee musqushahay intaan godkan guryaha laga qodan bay ahayd bay leedahay marka aniga iyo islaantii dhashay mistax baa israacnoo dabadda u baxnay markaanu dantayadii soo dhammaysanay bay tiri soo noqonnay oo ay guriga ku soo socdaan ayay islaantu marada isugu joogsato way turturrato way kufto kale markaasay islaantu waxay tidhi tacisa mistax baa hoogay ayay tidhi inankeedii bay sheegaysaa yani waa iska ahalhays ay leedahay caaisha waxay ka xanaaqday ninkaa la habaaraya ma waxaad caynkaa ku leedahay bay tidhi nin beder xaadiraad waxaa ku leedahay caaisha markaa mistax bay difaacaysa oo waxay leedahay mistaxoo badariya oo raggii beder xaadiraya ayaad waxaa kula hadlaysaa miyaabay islaanta ku leedahay islaantiibaa markaa tidhi naa hoogta miyaad waxbaba ogeyn ninkanaad difaacaysa miyaad ka warhaynin maxaa jira markaasaa caaisha warkaba loo akhriyay warkan bisha magaalada ku jira iyada lama soo gaadhsiin ma oga xataa in wax laga sheegay marka habeenkaasaa warka ay islaantani ku akhrido ay leedahay naa ninkaad leedahay difaacaysa aad leedahay waa badari miyaanu ahayn ninka waxan iyo waxaan sameeyey halkaasaan oohin ka bilaabay baa caaishana leedahay iyada gabalkeedii habeenkaasuu dumay bisha hore waxba kamay warhaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam wararkan markuu in badan maqlay waxaa la yidhahdaa bacdu saxaaba buu la tashaday gaar ahaan kuwii ku soo dhowaayey guriga la joogi jiray cali iyo usama bnu zayd buu wax weydiiyaa la yidhi cali buu yidhi war bal waran cali wuxuu eegay qadiyadatan iyo cidhiidhigay nebiga ku haysa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ishaaray ama si saraaxa uma odhan baa la yidhaha lakiin wuxuu u tilmaamay ilaahay rasuulkiisa iyo dumarku waa badan yihin ee de maxaa ciqaabkan iyo mushkiladatan wuxuu eegay nebiga siday qadiyadatan ay dhib ugu hayso dabeetana wuxuu u tilmaamay nooc min tilmaamaya inuu gabadhan iska sii daayo oo kale oo qadiyadeedan uu sidaa ku dhammeeyo usaamata bnu zayd wuxuu sheegay baa la yidhi isagu ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu u tilmaamay gabadha tani inaanu wax xumanaa ku ogeyn gabadh fiicanna inay tahy guriga ilaahay rasuulkiisana inaan xumaa alla ku sugeen inuu hayo oo aanu gabadhan sii daynin ayuu u tilmaamay usaamana cali markuu qadiyadda u sheegay wuxuu kaloo u sheegay baan rajaynaya in axaadiistu sheegi jirtay bal jaariyaddana weydii yani midkood baa sheegay in inantii guriga la shaqaynaysa caaisha in la weydiiyo inantii baa la weydiiyo waxaa la yidhi bal ka waran wax dhiba anuu caasho wax lagu ceebeeyo oo dhiba ku garan maayo bay tidhi ilaa iyo inay inan yar tahay oo cajiinkeeda intay ka seexato riyu ka cunaan mooyaane gabadha haddii la yidhaha wax ka sheeg anugu intaasaan ogahay bay tidhi yani habeenkii cajiinkeeda marka iska wado waa inan yaro waa ka lulootaa bay leedahay oo waxaaba laga yaabaa dawaade xoolahan soo galaa inay cajiin ka cunto haddii wax lay weydiiyo la yidhaaha gabadhaasi maxay ceeb leedahay intaasaan ogahay bay tilmaamay intaasina waa de un inay inan yar tahay oo luloonaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi masaajidkuu tegey dabeetana wuxuu hadlay man yacduruni war yaa iga cudurdaaraya buu idhi nin yaa iga cudurdaaraya duul
reerkaygii waxaan ka sheegaya oo ka sheegaya nin saxaabiya oo aanan wanaag khayr mooyaane wax kale ku ogeyn aan gurigaygana weligii imanin isagoo ila socda mooyaane Safwan ibn Mu'attal wuxuu nabigu sheegay markaa Aisha iyo Safwan ba wuxuu ku ogyahay Safwan nin khayr leeynu ku ogyahay Aishana inuu yana wax xumaan ku ogeyn yaa ka iga cudur daaraya dabeetana waxa kacay baa la yiraahdaa Sa'd ibn Mu'adh oo yidhi Ilaahay rasuulkiisiiyo hadduu reerkayaga yahayna anaga dilayna hadduu uu iska tirsan yahay Khasraj hadduu yahayna nafar anaga dilayna buu ku yidhi qadiyadaasi xasaasiyadii qabaa'ilkay dib u soo noolaysiisay dabeetana Sa'd ibn Ubaada oo Khasrajiya oo meesha isna fadhiya habar qabuuna waa Khasraj buu ka dhashay Abdullah ibn Ubay Sa'd ibn Ubaada oo meesha fadhiya wuxuu yidhi wallahi inaanad ku dhicin inaanad dili karin dabeetana waa dili karnaa oo buuq baa ka dhashay labadii kooxood baa qayliyo xagga mid ka qayliyo meeshii Aws iyo Khasraj baa dib isu gali gaaray oo murankoodii batay ilaa yow nabigu aamusiyay alayhi salaatu wasalaam waraamusa oo nabigu aamusiyo la aamusay dabeetana wuu ka soo baxay nabigu alayhi salaatu wasalaam Aisha warkii maqashay oo waxay leedahay habeenkii markaan maqlay habeenkii oo dhan waan ooyay maalintii dambe oo dhan waan ooyay habeenkii dambe oo dhan waan ooyay lam tarqa hurdo ishayda kuma soo dhicin bay leedahay waxaan oohinahayn waa layga waay oo xanuun kale ugu sii darsamay awal way iska xanuunsanayso waxaan sidibay tiri markii warka la sheegay bal horta hubi ilaahay rasuulkiisa iyo ogolow way tiri waan xanuunsanayaan aabaha iyo hooyaday u tagay wuu ogolaaday waxay tiri wax kale ugu ma socono waxa isla bal hada hubi iyaguna inay waxan maqleen waan weydiiyay bay tiri si aan u hubiyo dabeetana warkii inuu jiro ayaa ay cadaatay bay leedahay nabigu alayhi salaatu wasalaam markaa wuu yimi iyagoo ay reerku kaba cabsadeen oohin daraadeed beerku way dilaacay leedahay ayuu nabigu yimi alayhi salaatu wasalaam intii soo galay buu wuxuu yiri bay tiri Aisha waxa iga ka soo gaadhay warka caynka yaani waxa muuqata nabigu bishaas isna inaan waxba u sheegin Aisha laakiin iminka markay ogaatay iyana oo hindeyn weyda laba habeen maalin ooyeyso ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam guriga aabaheedii ugu yimi hooyadeed dabeetana markaas buu la hadlay wuxuu ku yiri Aisha waxay soo gaadhay arrinka sidaasiya ee fa in kunta bari'a fasayubri'uka Allah haddaad bari tahay oo aan dambigan geysanin ilaahay wuu ku bari yeeli doonaa wa in kunti almamti bidambin na haddaad dambaabtayna fastaghfir illaha wa tuubi ilayhi ilaahay dambi dhaaf weydiiso oo toobadkeen buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam fa innal abda idha i'tarafa bidambihi thumma taaba ila Allah taaba Allahu alayhi adoonku qofku haduu dambi galo oo uu i'tiraafo dambigiisa qirto ilaahay u toobad keeno ilaahay toobada uu ka aqbalaa hadaa dambaabtayna sidaa yeel buu ku yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam waxay tiri weedha markaa nabiga ka maqlay ayay oo hintiiga qudho aan soo kacay dabeetana aabahay baan u jeesta waxaan ku yiri bay tiri u jawaab nabiga dabeetana wuxuu yiri waxaan ugu jawaabo garan maayo hooyaan ku jeestay bay tiri haddana aan ku yiri bay tiri u jawaab nabiga alayhi salaatu wasalaam hooyadeedna waxay tiri waxaan ugu jawaabo garan maayo Aisha waxay leedahay markaasaan hadlay anigoo raba inaan isbari yeelo wallahi aan ku dhaartay bay tiri warkan waa maqasheen ilaa yow nafihiina degay waalidkeedii bay la hadlaysaa iyo nabiga alayhi salaatu wasalaam waxay ku leedahay markaas wallahi aan ku dhaartay laqad alimtu warkan waa maqasheen ilaa iyo uu idin daadagay oo aan rumaysatay bay u jeedaa maanta haddaan ilaahay bari baan ahay iyadoo ilaahay og yahay inaan bari ka ahay ima rumaysanaysan bay leedahay iyadoo ilaahay og yahay inaan bari ahay haddaan idhaahdo wax dambi oo aan galay ma jiro sida warku idin degay waxa ay muuqato bay leedahay inaydan rumaysanaynin iyadoo alla og yahay inaan bari ka ahay haddaan idhaahdo waan qabaana waxaan ogahay inay wada rumaysanaysaan oo markiiba aqbalaysaan ee ilaahay baan ku dhaartay ma ajidu li wa lakum mathalan illa qawla abi yusuf Aisha waxay leedahay waxaan idhi
wax kale oo aan idhaahdo garan maayo aniga idinka dhexdeena yuusuf aabima yacquubna waan qaban kari waayay bay tiri yani caradii hayse yacquubna inay nebi yacquub magaciisii sheegtana way garan kari weyday dabeetana waxaan dhibay tiri wax kale oo aan leeyahay maanta ma jirto weedhii yuusuf aabihii uu lahaa un mooyaane fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun tii baan leeyahay bay tiri fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu على ما تصفون فوردوا لها نبي يعقوب markii intay yuusuf godka ku soo rideen wiilasha ay yimaadeen ay yiraahdeen annagoo cayaarayna ay cunay qamiiska dhiigala ay keeneen ilaahayna uu waramay inaan saan wuxu jirin ayuu wuxuu lahaa fa sabrun jamiil wallahu almusta'aan ala ma tasifun ilaahi baanu sabraya abulaha asbiru sabran jamiila yani ilaahi baanu sabraya ilaahi baana iga gargaari waxana sheegaysaa Aisha weedhaas bay tiri sabarkii ay sabirtay ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku bariyay waliba Aisha waxay lahayd waxaan islahaabay tiri ilaahay uu ku bariyeeli laakiin ismaan lahayn bay tiri quraan baa samada ka soo degi doona barinimadaada ka waramaya oo abidkii muslimiintu ay akhriyi doonta waxaan islahaabay tiri ilaahay uu bariye iyo wuxuu nabiga ku tusi doonaa calayhi salaatu wasalaam barinimadaada oo warmaysnaabay leedahay in alla ay bariyeelaye laakiin naftayda waan iskala yaraabay leedahay in arintayda ilaahay ka hadlo subxaanahu wa ta'ala oo quraan ka soo dego dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam quraan baa ku soo degay isagoo meeshii fadhiya ayaa waxyigu ku soo degay oo dhidid badani ka yimid markii uu soo kacayna wuxuu ku yidhi Aisha amma wallahi faqad barra'aka Allah ilaahay baan ku dhaartay ilaahay waa ku bariyaa dabeetana quraankii buu rabay inuu nabigu akhriyo Aisha hooyadeedo halkan fadhiya waxay tiri qumi ilay nauka ilaahi rasuulkiisa bay ku tiri markaas Aisha markaa iyadoo rabta in ilaahi kaligu mahadnaqdo ay tiraahdo cid kale ilaahi baa barinimadayda keenay idinku idinka dhanka ka wada maray ayay nabigana calayhi salaatu wasalaam og inuu jecel yahay oo ku kalsoona ayaa waxay tiri wallahi la aqumu ilayhi wala ahmadu illa Allah ukci ma yabay tiri ilaahi baan ku dhaartay ilaahi cidaan hayna mahadin maayo يعني ما هذا أردن إلهي بريء لي سبحانه وتعالى إلهي وكليه أيان مهد نقيا وحسود دقي مركز آيات كقرآن آيات قوية طبنات إلا اللباتنات سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم آيات ككبل أبما آيات سود دقي وإلهي سبحانه وتعالى وكقور رميه عدة نفتن سميس إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم بايلهي كوي بين أبورت كليمي وكوح إنك إذن كمدا بايلهي سبحانه وتعالى كوح إنك إذن كمدا أيا لطمي بايلهي سبحانه وتعالى بين أبورتك وآياتك إلهي سبحانه وتعالى قصيت الماميو لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين بايلهي لولا إذ سمعتموه هل إذ سمعتموه وارمركا مقاشين با إلهي سبحانه وتعالى maxay ugu maleyn waayeen dadka muuminiinta rag iyo dumarba naftooda khayr maxay ugu maleyn waayeen yaani asalku waxa weeyaan dadka muuminiinta ah inaanay tuhmaad soo qabanin asalku waxa weeyaan qofka muslimka ah inuu bari yahay ilaa yan wax ku cadaadaan mooyaan walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala maxay dadka muuminiintii badhka kale ugu maleyn waayeen khayr oo maxay u oran waayeen hada ifkun mubin ba ilaahay kan waa been cad oo la abuuray bal dadka muuminiinta badhba weedhan lahaa oo Abu Ayyub al-Ansari waxa la dhahaa weedhu lahaana iyadoo quraana ilaahay soo dajiyay subhanaka ma yakunu lana an natakallama bihada wa weedhu oran jiray baa la yiraahdaa Abu Ayyub al-Ansari subhanaka hada buhtanun azim nusustan iyadoo quraana oo ku jirta ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dajiyay ala kulli haal ilaahay baa Aisha barinimadeeda ka soo dajiyay cirka min fawqi sab'i samawat baa ilaahay ka soo waramay isagoo tilmaamaya in anta yara ina Abi Bakara ee nabigu qabay calayhi salaatu wasalaam inay bari tahay haba yaraatee waxna inaanay qabin dadka markay barinimadii soo degtay ee warkii cadaaday ayuu Abi Bakar dhaartay baa la yiri inaan dib Mistax u biilinin Mistax iyo hooyadii Abi Bakar baa biilin jiray haddana Mistax wuxuu ka qayb galay waa qaldamay markanoo waxa warkii munaafiqiintu sheegay run mood
dabeetana kaasuu faafiyey abubakar markaasi waxaa la yidhi waa ka dhaartay inaanan ninkaasi dib lay soo marin iyo warkiisa qur-aan baa haddana soo degay ilaahay subxaana wa tacaala leeyahy walaa yaatali uli lfadli minkum wasaca an yu'tuu uli lqurba ilaahay uu leeyahy subxaana wa tacaala yay ka dhaaranin kuwa ilaahay dheeraadka siiyey iyo sacada ballaadhsiga siiyey inay qaraabada iyo masaakiinta wax siiyaan yay ka dhaaranin alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ilaahay leeyahy waar miyaydaan idinba jecleen in ilaahay dembigiina dhaafo yani maalin walba waad dembaabtaan oo ilaahay baa dembi ka gashaan haddana hadhow baa gacmaha horsataan oo tidhaahdaan allahuma inaa nastakfiruka wanatuubu ilayk oo waxaad jeceshiin in ilaahay dembigiina dhaafo ilaahay baa markaa wuxuu leeyahy alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum miyaydaan idinkuba jecleen in ilaahay dembigiina dhaafo abubakar markaasuu yidhi bala ilaahay waa jeclay kaayaga inaad dhaafto waxaanan ka markhaati gelaya inaan kaana dembigiisa dhaafay biilkiisana dib u siinayo dib buu ugu qoray biilkiisiina uu siiyey ilaahayna dembi dhaaf weydiistay qadiyadda tani runtii magaalada madiine way gelgishay weliba waxay gelgishay muddo bil ah bil baan waxyi cirka ka imanin masaladan ka warramaya gurigii nebigana warkan iyo beentan laga akhrinayay muslimiintuna ay shakiga kan qaar badanay qaadeen ama qaar ay rumaysteenoo warka kan ay isdhex raaraaciyeen idan waxay tilmaamaysaa dadka ahlu dacaayaadka iyo munaafiqiinta iyo qurunka sameeya say mujtamac dhisan u gilgili karaan been iyo intay wax isku toostoosistaan mujtamac dhisan say u gilgili karaan waxay kaloo tilmaamaysaa in loo baahan yahay dadka muslimiintii war kastoo kutirikuteena inaanay dhegaysanin hadday maqlaanna inaanay sii sheegsheegin waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka been waxaa kuugu filan waxaad maqashaba inaad adna ku warranto wixii dhegtaada kusoo dhacba aad warkeed soo maqashaba inaad adna sheegto kaasaa been kuugu filan waayo waxaan la wada sheegaya inaanay run ahayn waa iska caddahay haddii aadna wixii la sheegaba aad sheegto dembiga dee badh baa kaa soo gaadhaya waxaa kaloo nusuustani tilmaamaysaa dad badan oo muslimiinta ka mid oo iska fiican oo iska niyadsan inay munaafiqiintu war si xun u gelin karaan oo ay si maqluuba u gelin karaan walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nusuustii baa soo degtay xadulqadfiga ka warramaysay in aladiina yarmuuna almuxsinaat kuwii ilaahay tilmaamayay dumarka muxsanaadka ee dhowrsan ee cafiifaadka ah kuwa gana ee zina ku gana in korkooda ay waajib ku tahay in la jeedalo oo 80 jeedal lagu dhufto oo waliba aan markhaati dambe laga aqbalin nusuustaasi tirada badan ee suuratu nuur ilaahay kaga warramaya soo degtay dabeetana xadul qadf ayaa waxa lagu qaaday mistax iyo xasaan iyo xamna saddexdaaba waa la qadfiyey min 80 jeedal ayaa lagu dhuftay waxa la yiraahdaa ninkii waxaan oo dhan ka dambeeyay isaga lama jeedalin cabdillaahi ibn ubay culamadu dhowr sababood baa way sheegaan culamada bar waxay yiraahdaan habar qabuhu waxaan oo dhan haddana xariif buu ahaayo intiisan munaafiqiinta iyo kooxdan uu warka ka dhex oran jiray oo soo faafin jiray mooyaane muslimiinta dhexdooda isagu waxba kama oran jirin laakiin qoladan masaakiinta ah way rumaysato de muslimiinta dhexdooda iyo dadkii muuminiinta ahaa dhexdoodii ay wararka ka sheegeen dabeetana iyaga de kaysku ku cadiyo waa la hayaa dadkii ay u sheegeen iyo markhaatiyadii waa la hayaa laakiin habar qabow isaga waxa la yiraahdaa backgroundka meel dambe ayuu wax ka soo sheegay markaasi kaysku isaga kuma cadaanin culimada bar baa yiraahdaa culimada bar kale waxay yiraahdaan maye isaga de quraan baa ku soo arooray in alladina yu'duna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan mubin yani quraan baa soo arooray inuu cadaab leeyahay marka isaga waxa la tilmaamayaa xadku qofku hadduu dambi galo oo xad lagu qaado waa kafaara sidoo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dambiga aakhira ka dhacaya marka dambi dhaaf bay u tahay isaga waxaan la rabin bay leeyihiin dambi dhaaf isaga ilaahay baa sheegay inuu cadaab aliima leeyahay xagga kalun baa loo biirinayo isagu kiisi dhankan aakhiro ku wada qaadanaya oo kafaara inuu helo ayaan isagu xaq u lahayn baa la leeyahay culimada badna saasay ku tilmaamaan أحاديث ضعيفة ورواية ضعيفة صائر رويل هذا حد الغطف يسجنا ولا لقوا قاضي لكن وحبا كما صحين وحعادوننا وحبا لقوا سمينين نما كمنافقين توا حكوا كعد نبتني يور كنا يجيستين سيدا يسجد دريان مركز مجتمع إسلامي يسي يسجد دريان قبائل كان مسلمين تاين يسكهر كيران يجوا الصحابة وحن قبيل كلا يدينوا خطرية هاي سيدا مرر بدنا حالة خطر وقاعدين لا يسكب حصده
haddaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhex joogin oo kala qabanaynin oo kala celinaynin oo kala joojinaynin iyo inuu nebigu baray calayhi salaatu wasalaam in unsur akhaaka daaliman aw madluuma buu nebigu yidhi u gargaar walaalka hadduu daalimiyo iyo hadduu madluum yahayba laakiin berigii hore jaahiliyadu ugaadhan intay yidhahdaan bay si u sharxi jireen nebigu sidiisi ka gadisan buu u sharxay garanay bay dhahan ilaahay rasuulkiisa iyo walaalkay haddii la dulmiyey saan ugu gargaaraye isagu hadduu daalimiyo saan ugu gargaaraa dulmiga ka qaba buu nebigu yidhi kaasaa gargaar u ahay walaalkaa markuu wax dulmayaa tidhaha war joogso markaasaad badbaadisay oo aad khayr u horkacday ee walaalkaa u gargaar labada jeerba hadduu gardaran yahayna qabo haddii laga gardaran yahayna toostoosi oo ka jooji xumaha uu wado labada jeerba waxaa kale oo nusuustaa ka muuqata qofku hadduu ilaahay u sabro oo sabir dhaba u sabro oo ilaahay u tala saarto in ilaahay beri yeelayo sidaa caaishaba inta laysugu wada tegey ilaahay subxaana wa tacaala uu beri yeelay waxa kale oo qadiyadda tan ama ghaswadan aynu odhan karnaabaa ka ratibmay wuxuu guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii la odhan jiray juwayriya bintulxaarith ibn abi daraar juwayriya waxay ka mid ahayd dadkii lasoo qafaashee lasoo qabsaday ghaswadatan ghaswatu bani lmustalib waxaana dhalay odaygii kaaba qabiilka u ahaa reerkan oo dhan alxaarith ibn abi daraar odayga la yidhaahdo ayaa qabsaday haniimadii muslimiintu markay qaybsadeen sabyigu waa caruurtii iyo dumarkii iyo wixii la qaybsanayay addoomaa laga dhigayey markii la qaybsaday haabit ibnu qays ibnu shamaas saxaabigii la odhan jiray baa qayb u helay gabadha tan dabeetana sahmigiisii markay ku soo dhacday mukaataba bay la gashay waan isxoraynaya adduun baan bixinaya ayay sii daaba jiri waayahay buu yidhi wuu sii daayey markaa adduunka intaa leg inay isku furato dabeetana ay xorriyaddeeda qaadato waxay u timi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo ka codsanaysa waxay sheegtay tolkeed caynkay ku dhex ahayd iyo dee reerkaba odaygii ka dhaqaaqaya inuu dhalay nimankana inay qafaalan tahay oo dee addoonnimo ku jirto inuu caawiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo adduunkaa ka bixiyo ayay ugu timi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuu ka bixiyey adduunkii buu ka bixiyey haabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa adduunkiina la siiyey oo qaatay wuxuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam usoo bandhigay inuu guursado way aqbashay wuu guursaday markaa gabadhii wixii laga rabayna wuu ka bixiyey juwayriya waa ummahaatulmu'miniinkay ka mid tahay wuu guursaday markuu guursadayna saxaabadii waxay yidhaahdeen kale dee ma xididkii nebiga calayhi salaatu wasalaam baynu addoonsan karaynaa gaalay ahaa in lasoo qabto dee goob dagaal lagu soo qabto xaq baa lagu lahaa laakiin waxay ka xishoodeen nebiga dee seediyadii iyo dumaashiyadii iyo kooxdan nebiga xididkiisii calayhi salaatu wasalaam inay addoonsadaan bay ka xishoodeen dabeetana intii kale iyana yidhahdeen annana waanu xoraynay iska taga waa sii wada daayeen waatay caaisha lahayd maan arag bay tidhi famaa kaanat imra'atun acdamu calaa qawmiha barakatan minha ma jirin bay tidhi gabadh ka barako badan juwayriye tolkeed uga barako badan 100 qof oo reerkoodii ka mid ah loo sii daayey mi'atu ahlu bayt 100 reer oo dadkii la soo qabtay ka mid ah ayaa lagu sii daayay iyada sababteedii waxaa la yidhaahdaa alxaarith ibnu abi daraar oo odaygii iyada dhalay mar dambe magaalada yimi isagu kumuu jirin dadkii la soo qabtay uu baxsaday ayuu yimi isagoo ka codsanaya bay riwaayaadka qaarkood sugayaan maraasiil sanad saxiixa laakiin mursala isagoo nabiga ka codsanaya inuu inantiisa u sii daayo dabeetana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyadaan doorrasiinayna hadday iyadu doonayso inay sii daayna waa sii daynaya hadday rabto inay la joogtana waa joogaysa waa la doorransiiyey waxay dooratay inay nabiga calayhi salaatu wasalaam la joogto kadib ayuu odaygiina iska islaamay alxaarith ibnu abi daraar ayaa islaamay tolkiina islaamkiibuu ugu yeedho wuu islaamay dabeetana isagaaba tolkii sadaqada iyo zakaadka ka ururin jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu cid u soo diray ayuu u soo diran jiray gabadhan guursigu nebigu guursaday wuxuu xoojiyey xidhiidhkii qabiilkan iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhaxaynayey reerka kanna xorayntii loo xoreeyey dadkii laga qabsaday wixii oo dhan loo sii daayey waxay noqotay nooc min mu'allafati quluubihim bay noqdeen wax islaamka u soo dhaweeya waayo inta laga xoog batay oo la jabiyo oo waxoodii laga qabsaday ayaa haddana mujarrad la wada xoreeyey iyagu dhib geystay taasi waxay noqotay baa la yidhahaa reerkan inuu dib u islaamo oo islaamka uu qaato oo jihaadka uu ka qayb galo oo reer runtii islaamka aad u xoogeeya uun ka mid noqdo
dee ninkan sababtiisuna markii dambe waa nusuustan dambe suuratul xujaraat ku jirtaana waa ninkay kusoo degtay sababtiisa alxaaris ibn abi daraar waxaa la yidhaahdaa